subax wanaagsan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan u diyaar garooba idaacadeena subaxnimo inaad ka daawataan janaaladena YouTube-ka sirta wararka iyo calanka news waa sabti taariikhduna waxay ku beegan tahay 19 bisha 2 sanadka 2022 idaacadeena saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn warka aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka ah wararkii ugu dambeeyay Fahad Yaasiin oo ka cabsi qaba in ra'iisul wasaare Roble uu ka hor istaago safarka maanta uu ku tagayo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan dhaqdhaqaaqa Fahad safarka muqdisho kaga baxayo iyo xaaladihii ugu dambeeyay ayaan soo qaadan doonaa yaa ka dambeeya hakiinta doorashada kursiga loo xiray Fahad Yaasiin cid ka dambeysay iyo xogo cusub oo helay channelkeena dagaalka Roble iyo Fahad Yaasiin iyo Roble talaabooyinka uu qaaday oo arinta kaga sii dari karta iyo kala qaybsanaanta guddiga doorashada ka dhex jirta xogihii ugu dambeeyay arimahan oo dhan ayaan isdul istaagi doonaa wakiilada beesha caalamka war cusub ayay ka soo saareen xaaladda doorashada Soomaaliya markale digniin adag ay u jeedin hogaamiyaasha Soomaalida digniinta beesha caalamka ayaa idin soo gudbin doonaa Mareykanka wuxuu soo saaray digniin culus oo ku socota madaxda Soomaalida maxaa dhici kara 25 Febraayo hadii la gaaro doorashadana aan la dhameystirin waa maxay talaabada Mareykanka uu ku goodiyay inuu qaadi doono warbixin ku saabsan ayaa qayb ka noqon doonta saaxiibayaal waxa kale oo qayb ka wasiir saaxiib la farmaajo oo cabasho xoogan ka keenay ciidamadii sugilaha amniga doorashada kuraasta taala Boosaaso wasiirkan iyo cabsida soo wajahday qayb ay ka tahay warbixinadan kuma kala muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa saaxiibayaal idaacadeena subaxnimo qayb ka noqo saaxiibada ku xidhay channelkeena subscribe inoo dhigam balelkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena saaxiibayaal soo dhawaada hagaag aan ku bilaabo wararkii ugu dambeeyay safarka Fahad Yaasiin iyo waliba Fahad oo ka baqayeen ra'iisul wasaare Roble oo ka hor istaago safarka maanta Fahad Yaasiin uu ku tagi lahaa magaalada Beledweyne warar kala duwan ayaa ka soo baxay taliyihii hore hay'adda NISA Fahad Yaasiin oo hadda la taliyaha dhanka amniga ee farmaajo kaas oo xildhibaannimo maanta raba inuu u doonto magaalada Beledweyne soo kaga qayb galo doorasho bari ka dhacaysa magaaladaasi Fahad ayaa shalay ciidamo badan iyo ergo wuxuu kala degay magaalada Beledweyne halkaas oo la dejiyay xero military ciidanka amisom ay ku leeyihiin duleedka magaalada waxaan xusid mudan in hadda Fahad Yaasiin isla maanta uu rabo in safar kaga baxo magaalada Muqdisho maadaama maalinta bari oo axad doorashadiisu ay ka dhici doonto xerada militariga lama galay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa culays weyn saaraya kursiga u tartamaya Fahad Yaasiin ee hadda uu ku fadhiyo Faarax Sheekh Cabdiqaadir sidii Fahad looga hor istaagi lahaa waxaa suurtagal ah in leeyahay in ra'iisul wasaare Roble uu istaag bareera uu ku sameeyo safarka Fahad Yaasiin maanta gilinka dambe uu qorsheynayo in magaalada Muqdisho kaga baxo oo ku tago magaalada Beledweyne waxaa xusid mudan in ciidanka NISA ay joogo garoonka diyaaradaha aadan cadde in dhammaantood ay ka amar qaataan Fahad Yaasiin balse waxa la filayay xafiiska ra'iisul wasaare Roble in ciidamo kuwaas aan ahayn oo military ah oo soo abaabulay wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur in la dul dhigo gudaha garoonka diyaaradaha Muqdisho taas oo adkeyn karta in Fahad Yaasiin oo si nabadgelyo kaga duulay airportka Muqdisho Fahad ayaa hadda maanka ku haya in laga yaabo in ra'iisul wasaare Roble oo ka hor istaago safarkiisa Muqdisho maadaama dhacdooyinkan aysan ahayn kuwa cusub waxa sidaan oo kale magaalooyinka Baraaba iyo Dhuusamareeb loo diiday inay tagaan gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka golaha shacabka Cabdulle Ibraahim Muddo oo magaalada Baraaba ku wajahna soo qaato kursi xildhibaannimo ayaa loo diiday in magaalada Muqdisho uu ka baxo si lamida gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir Cali Yara Cali oo isla Dhuusamareeb ku wajahna soo qaato kursi xildhibaannimo ayaa laga hor istaagay in airportka uu ka duulo wax cusub ma noqon doonto hadii Fahad loo diido in airportka uu ka duulo laakiin haddana awoodda ra'iisul wasaaraha iyo in Fahad laga hor istaago ayaa si daciifinaysa maamulka garoonka ciidanka NISA dhammaantood waxay u muuqdaan kuwa ka amar qaata Fahad Yaasiin laakiin hal talaabo ayaa ra'iisul wasaaraha u furan halkaas talaabo ah inuu isticmaalo awood military oo ciidamo military uu geeyo airportka taas oo cusleyn karta in ciidanka NISA ay ku dhiiradaan in si nabadgelyo ah Fahad Yaasiin airportka ay ka duuliyaan haddaba dhinaca kale aan eego yaa ka dambeeyay hakinta doorashada kursiga Fahad Yaasiin guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa ku dhawaaqay inay hakiyeen doorashada kursiga tirsigiisu yahay hoob 86 ee loo xiray taliyihii hore hay'adda NISA ana la taliyaha dhanka amniga qaranka madaxweyne Farmaajo qoraal guddiga ka soo baxaysa waxay ku micnayeen in cabashooyin badan soo gaartay awgooda la hakiyay oo lagu wargeliyay guddiyada kale inaysan qaban kursigaasi haddaba janaalkeena sirta wararka ayaa helay wareedo lagu kalsoon yahay waxa janaalkeena
sirta wararka u xaqiijeen in go'aanka lagu hakiyay doorashada kursigan uu ka dambeeyay amarkaasna uu bixiyay ra'iisul wasaare Roble sida ay noo xaqiijeen ila kamida guddiga doorashada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhawaan isugu yeeray guddiga doorashooyinka heer federaal gaar ahaan gudoomiyaha guddigaasi Muuse Geele Yuusuf wuxuu ku amray in dib loo dhigo doorashada kursiga Hob 86 oo beledweyne maalinta xadda doorashadiisu ay ka dhacayso ra'iisul wasaaraha ayaa gudoomiyaha u sheegay in tartanka kursigaasi alla qaban ilaa iyo amar dambe dibna loo dhigo waxaana ra'iisul wasaaruhu markaas marmarsi ka dhigtay in xildhibaankii ku fadhiyay kursigan Farax Sheekh Cabdiqaadir uu ku xanuunsanayo dalkaasi Hindiya oo arrimo caafimaad ku maqan yahay intuu ka soo caafimaadayana waxa waajib ah in kursigaasi dib loo dhigo macada hadii Roble oo daacad ay ka ahayd in kursigan la sugo Farax Sheekh Cabdiqaadir iyo hadii ay tahay in qiilo kaga dhigayo sidii Fahad u beegsan lahaa oo kursigan uusan soo qaadan Fahad Yaasiin way iska muuqataa in kursigan maalinta xadda si nabadgelyo kaga soo qaadan doona magaalada beledweyne Roble ayaa hore isku qabteen Fahad Yaasiin asagoo xoogiisa isku geeyay sidii kursigan u dhaafin lahaa Fahad ayaa hadda la taliyaha dhanka amniga ee madaxweyne Farmaajo guddiga doorashooyinka heer federaal garan gudoomiyaha guddigaasi Muuse Geele Yuusuf oo ka soo jeeda Puntland ayaa waxa uu xilligan kaalin weyn ku leeyahay doorka ra'iisul wasaare Roble ee uu rabo in Fahad Yaasiin laga hor istaago kursiga doorashada si kastaba guddiga doorashada heer federaal ayaa ina dhankooda u muuqda kuwa isku khilaafay arintan oo laba dhinac u kala jabay gudoomiyaha guddiga iyo waliba ku-xige gudoomiyaha guddiga afayeenka Liibaan Shuluq ayaa dhanka ra'iisul wasaaraha jira halka ku-xigeenka iyo xubno kale oo aqlabiyada u badan dhanka Fahad Yaasiin ay soo jiraan sidoo kale guddiga doorashada Hirshabelle ayaa ina ku gacan saaray dhammaan badalabaadkii guddiga doorashada ee ahaa hakinta kursigan si marka loo fiiriyo hadda waxa muuqata in dagaalka u dhaxeeya Roble iyo Fahad Yaasiin oo aad u xoogeysanayo ra'iisul wasaare Roble ayaa u muuqday nin dharka dhigtay uuna raba in si toos ah u beegsado Fahad Yaasiin uusan kursigan si nabadgelyo kaga soo qaadan magaalada Fahad ayaa hadda indhaha lagu wada hayaa safarkiisa maanta airport-ku ka duulayo iyo sidoo kale waxyaabaha iska bedeli doona hadii uu tago magaalada beledweyne laakiin xogtu waxay sheegaysaa hadii mar ka duulo airport-ka Muqdisho si nabadgelyo ku tago beledweyne Fahad Yaasiin way caddahay in kursiga xildhibaannimo uu si nabadgelyo kaga soo qaadan doono magaalada laakiin haddana isbaarooyinka u yaala Fahad ayaa waxa lagu qeexaa ilaa dhowr isbaaro waxaana qayb ka in gudaanba guddiga doorashada garan gudoomiye Muuse uu soo saaro qoraal lagu kansalayo doorashadaasi waxa kale oo dhici karta in xitaa guddiga xalinta khilaafaadka inay hakiyaan kursiga Fahad Yaasiin taliyihii hore hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir haddana musharax golaha shacabka u tartamaya kursiga tirsigiisu yahay Hob 86 ayaa saacadaha soo socda la filayaa inuu gaaro magaalada beledweyne qabanqaabada soo dhaweynta Fahad ayaa si weyn lagu dareemaya hadda sida ila wareegtay inoo xaqiijiyeen gudaha magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan ergida dooranaysa ciidanka ilaalin lahaa dhammaan bashale ayaa diyaarado lagu daabulay Fahad ayaana la filayaa saacadaha soo socda maanta inuu ka duulo airport-ka Muqdisho wixii soo kordhay dhaqdhaqaaqa Fahad iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble iyo dagaalkooda idaacadina galabnimo ayaan saaxiibin kugu sharxi doona macluumaad walba oo soo kordha hagaag aan u gudbay beesha caalamka war cusub ay ka soo saartay doorashada golaha shacabka war saxaafadeed si wadajir ay u soo saareen xubnaha wakiilada beesha caalamka waxa looga hadlay doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan midda golaha shacabka ay dalbadeen in si degdeg ah loo soo dhameystiro qoraal lagu shaaciyay xubnaha wakiilada beesha caalamka ay sheegeen in si dhow la socdaan doorashada ayna ka warhayaan doorashada kuraasta golaha shacabka ee qiyaasta kala bar hadda maraysa saaxiibada caalamka waxay markale hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in sixid la sameeyo qaladaadkii habraacyada dhacay si loo wajaho doorasho dhexdhexaad oo daahfuran laguna kalsoonaan karo la soo saaro iyadoo la tixgelinayo geedi socodka doorashada iyo natiijooyinka sida lagu qeexay warmurteedka golaha wadatashiga qaran ee soo baxay bishii Janaayo musharaxiintu waa inay xor u ahaadaan inay u tartamaan caqabad la'aan suxufiyiintuna waa inay awood u yeeshaan soo tobinta bulshada rayidkan waa inay si xor ah u kormeeraan howlaha doorasho aysan jirin cabsi gelin handadaad ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale waxay guddiga ugu baaqeen dhammaan madaxda Soomaalida inay ka fogaadaan wax kasta oo kicin kara xiisad siyaasadeed ama xaalad abuuri kara waxa sidoo kale ay xaqiijin ciidamada ammaanka aan la isticmaalin sida aan loo isticmaalin arrimo siyaasadeed waxa sidoo kale beesha caalamka ay sheegeen in indhaha ku wada hayaan dhammaan natiijooyinka soo bixi kara saaxiibada caalamka waxay ku celinayaan walaaca ay ka qabaan aqoondada haweenka
ee 30% matalaada haweenka baarlamaanka inaan la gaarsiin oo sanadkan ay ka yaraato waxayna ugu baaqeen in tallaabooyin degdeg ah la qaado si loo saxo kuraasta harsan waxa waajib ah in qoondada haweenka ee 30% baarlamaanka ay ka soo muuqataan maadaama waqti kama dambayska la isku raacay golaha wadatashiga qaran oo dhigayay bisha Janaayo 2020 kuna 25 Febraayo bahda waxaan ku dhiirigelinayaa in waqtiga la ilaaliyo lana xaqiijiyo dhameystir degdeg ah oo ku saabsan doorashada lana helo doorasho lagu kalsoonaan karo oo geedi socod ah ugu dambeyn qoraalka wakiilada beesha caalamka waxa si wada jira u soo saaray dalalka sida weyn u taageera Soomaaliya waxaana kamid ah dalalkaasi howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM wadamada waxa qayb ka Belgium Canada Denmark Ethiopia midowga Europe Finland Jarmalka urur goboleedka IGAD Ireland Talyaaniga Japan Kenya boqortooyada Sacuudi Carabiya ururka jaamacadda Carabta Holland Norway ururka iskaashiga dalalka Islaamka Sweden Switzerland Turkiga Imaaraadka Carabta boqortooyada midowga Britain dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay wana wadamada sida wada jirka u soo saaray qoraalka wakiilada beesha caalamka ee hadda aan idin akhrinay dhinaca kale dowladda Mareykanka ayaa inahu u muuqata in xalay soo saartay qoraal ay madaxda Soomaalida uga hanjabayso in waqtiga la haysto aad u yar yahay si dhamaanayo dowladda Mareykanka ayaa markale luqad adag kula hadashay madaxda Soomaalida ayadoo uga hanjabtay in ay si gaar ah tallaabo ugu qaadi doonto cid caqabad ku noqda dardargelinta doorashada gaar ahaan mid golaha shacabka ee socota qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxa lagu dalbaday in madaxda Soomaalida ay ka dhabayaan ballanqaadkooda geedi socodka doorashada golaha shacabka lana soo gabagabeeyay 25 bisha Febraayo waa bishan ku guda jirno si lagu kalsoonaado doorashada furan dowladda Mareykanka waxay la xisaabtami doontaa cidii carqalad ku keenta ama carqaladeysa hanaanka doorashooyinka ayaa lagu yiri warka ka soo baxay safaaradda Mareykanka qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda ayaa waxa daba socday war saxaafeed goor hore oo isla la sii daayo ay soo wada saareen wakiilada beesha caalamka kuwaas oo si degdeg ah ku dalbanayeen in la dhameystiro doorashada xubnaha beesha caalamka oo qayb ka ah Mareykanka waxay sheegeen in si dhow loo socdaan doorashada ayna ka warhayaan kuraasta dhiman ayna la dhameystiro sidoo kale waxay ugu baaqeen dhammaan madaxda Soomaalida inay ka fogaadaan wax walba oo si kicin kara xiisada siyaasadeed iyadoo la xaqiijinayo dhammaanba in la ilaaliyo hanaanka doorashada si kastaba Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka sida dhow la socda doorashooyinka Soomaaliya waxayna Mareykanku ay sheegeen in si dhow la socdaan geedi socodka doorashada federaalka Soomaaliya ugu dambeyn saaxiib wasiir la saaxiiba farmaajo ayaa cabasho ka keenay ciidamo badan oo sugaya amniga doorashada magaalada Boosaaso wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kamid ah wasiirada sida waaweyn ee madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saaxiib la ayaa cabasho ka keenay qaldana ka keenay hanaanka loo sugaya amniga iyo goobta lagu qabanayo doorashada baarlamaanka ee aqalka hoose oo magaalada labaad ee doorashada lagu qabanayo wasiir Jamaal Maxamed Xasan ayaa sheegay in asaga iyo siyaasiyiin kale aysan doonin in doorashadaas ay ka qayb galaan maadaama aysan doorasho madax bannaan oo habkii la rabay aan ilaa hadda loo qabanaynin waxa uu sheegay in doorashada lagu qabanayo teendho laga dhisay gudaha airportka magaalada Boosaaso iyadoo ilaalinayaan ciidan aan ahayn ciidamo Soomaaliya oo loogu talagalay kuwii amniga sugay doorashada ciidanka Soomaaliya ahayn laakiin kuwa uu sheegay inay PMF oo ciidamo si gaar u leeyahay ciidan asagoo sheegay in ay muuqato in la boobayo kuraastooda wuxuu sarkaalkan sheegay inay ka soo horjeedaan wax walba oo ku saabsan kuraastaas iyo sidoo kale in ciidan aan lagu kalsoonaan karin qabashada kuraasta wuxuu ugu baaqay hogaamiyaha ra'iisul wasaare Roble oo ninka hogaaminaya doorashada in la gaar ah u yeesho kuraasta tale magaalada Boosaaso oo u muuqata mid la boobayo warbixinadeena subaxnimayna halkaas ku soo koobayna saaxiibayaal qodobadan iyo ugu weyn qodobadan wixii soo kordha idaacadeena galabnimo ayaan ku faahfaahin doonaa subax wanaagsan nabadgelyo subax wanaagsan